السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaa hubaal ah in ay dhagahaga ku soo dhaceen sheekooyinka cajiibka badan ee maafiyada dunida ka jira. ururo aad u caan ah sida Yakuza, Sinaloa Cartel, ururo si xad dhaaf ah u sameeyo lacag ay adag tahay in aad suuraysato balaayiin iyo balaayiin dollar. qaarkooduna ay ka dakhli badan yihiin inta ugu badan wadamada caalamka ka jira, kuwa Afrikana warkoodaba iska daa. maantay waxaan rabaa inaan sheeda kaaga qaado qaar ka mid ah ururada maafiya ee ugu taajirsan uguna cudud weyn guud ahaan caalamka iyo hantida ay ka sameeyaan ganacsiyada sharci darrada ah ee ay ku dhaqaaqaan. Number 10, Medellin Cartel. haddii maafiyada Medellin Cartel ay ilaa imaantay cududoodu jiri lahayd, waxa hubaal ah in ay noqon lahayd mid ugu horeysa liiskan. kooxdan waxa aasaasay hogaamiyana uu ahaa Pablo Emilio Escobar, laguna naaneyso The King of Cocaine, boqorka kokaayinta, mid ka mid ah gaangistaradii ugu caansanaa uguna taajirsanaa ee qarnigii 20aad, oo aan hubo in magaciisa ay dhagahaga ku soo dhaceen. waxaana maafiyadan laga aasaasay magaalada Medellin ee dalka Colombia. maafiyadan Cartel waxay aad u kacsanaayeen intii u dhaxaysay 1970 ilaa 1990 marka oo ganacsigoodii muqaadaraadka iyo kokaayinta ay u soo xarin jirtay in ka badan $60 milyan oo faa'iido ah maalin kasta. waa $20 bilyan sanadkii. ugu yaraan 85% kokaayinta xilliga dalka Mareykanka la keeni jirayna ayaga ayaa ka mas'uul ahaa. si la mid ah waxay ganacsigoodan gaarsiin jireen wadamada Bolivia, Canada, Panama iyo Peru. waxay kaloo aad uga caan bixeen dilalka qarsoodiga ah ee ay geysan jireen, sidoo kale qaraxyada iyo afduubyada joogtada ah, taa oo keentay in FBI-da ay u diiwaangeliyaan in kooxdan ayba tahay koox argagixiso ah. Pablo Escobar laftirkiisa micno daro isagama noqon gaangistarka ugu taajirsan taariikhda. xilligii uu dhintay ee 1993 waxay hantidiisa shakhsi ahaaneed gaaraysay in ku dhow $30 bilyan dollarka Mareykanka ah, oo haddii lacagta maanta loo eego gaaraysa $60 bilyan. cidda dhaxashay hantidiisan tirada badan kadib markii uu dhintay waa sheeko kale oo aad u dheer, waan uga hadli doono muuqaal gooni ah hadduu Ilaahay idmo. Number 9, Ndrangheta. Ndrangheta waa mid ka mid ah kooxaha maafiya ee ugu awooda iyo hantida badan gudaha qaaradda Yurub waqti xaadirkan. hantidoodu waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad $4.5 bilyan dollarka Mareykanka ah, balse aniga ahaan aan aaminsanahay in hantidoodu ay intaa ka badan tahay. sababkana aan kuu sheego. ugu horeyn Ndrangheta waxaa la aasaasay qarnigii 19aad, waa ku dhawaad 200 oo sano ka hor, waxayna asal ahaan ka soo bilowday magaalada Calabria ee dalka Talyaaniga. waxayna aad uga caan bixeen ilaa haddeerna lafdhabarta ganacsigooda ah ka ganacsiga maandooriyaha kokaayinta oo ay dhammaan gudaha qaaradda Yurub geeyaan. maantayna lagu tilmaami karo in ay yihiin ragga ugu weyn ee gacanta ku haya ganacsiga kokaayinta ee Yurub. balse ganacsigaasi oo kaliya kuma joogsan, oo muddadii dambe waxay gacmaha la galeen maalgelinta ganacsiyada sharci darrada ah si ay u sameeyaan wax loo yaqaano money laundering. ku dhawaad 200 oo sano oo ay maafiyadan jirto, iska daa in awoodoodu ay soo daciifto, waxay marba marka kasii dambaysa ku fidayaan daafaha caalamka, iyagoo maanta la joogo ka howlgala 6 wadan oo ka baxsan qaaradda Yurub sida Brazil, Colombia, Argentina, United States of America, Albania iyo dalka Canada. taa oo xaqiiqatan hanti ka badan mid lagu qiyaasay hantidoodu ay ka soo hoyin karaan. Number 8, Camorra. Camorra ma aha mid la mid ah kooxaha maafiya ee caalamka ka jira. haddii aan si kale u dhahno, waa mid ka weyn koox maafiya ah. waxaad dhihi kartaaba waa dawlad iskeeda u madax bannaan, waxaana hantidoodu lagu qiyaasaa in ka badan $4.9 bilyan. maafiyadan waxaa laga aasaasay gudaha dalka Talyaaniga qarnigii 17aad, waa ku dhawaad 400 oo sano ka hor. waxayna asal ahaan qayb ka ahayd midow ay sameeyeen kooxo badan oo maafiya ah oo dalka Talyaaniga ka dhisan, mana aha mid la og yahay qaabka ay u shaqeeyaan, balse waxaa mid cajiiba noqotay in 400 oo sano ay kooxdan dhisan tahay uusan jirin hal qof oo hogaamiye ama madaxweyne u noqday ama si cayiman madaxweyne ugu noqday. waa mid ay adag tahay in qof kale uu ka jawaabo sida ay ugu suura gashay in ay hogaamiye la'aan taagnaadaan 400 oo sano. balse haddii su'aashaasi la weydiiyo qof kasta oo ka mid ah kooxda maafiyada Camorra, wuxuu ku siinayaa jawaab aad u fudud, wuxuuna ku leeyahay isxushmayn, habraac iyo dhaxal. Number 7, Sinaloa Cartel. maadaama aan hore uga soo hadalnay maafiyada Medellin Cartel, aan markan ku baro maafiyadii booskeeda bedeshay kadib markii ay burburtay. waana maafiyada caanka ah ee Sinaloa Cartel. Sinaloa Cartel waxaa aasaasay gaangistarka caanka ah ee El Chapo Guzman, oo ah shakhsi aan innaba sahlanayn. waa ninkii maalin cad kaamirooyinkoo dhanna ay wada dayayaan ka baxsaday xabsiga ugu adag dalka Mexico. diiwaanada caalamiga ah ayaa hantida maafiyada Sinaloa Cartel ku sheega hanti gaaraysa $3 bilyan in sanadkii ay soo xareen
hayaan balse haddii aan xaqiiqda eegno tiradaasi waa mid aad u yar ugu horeen Sinaloa cartel waa mid kamid ah maafiyada dunida ugu kokayin iibinta badan waxaana lagu qiyaasaa in ku dhawaad 60% kokaayinta dalka Mexico laga soo saaro ay iyagu ka iibiyaan haddii aad eegto qiimaha suuqeed ee kokaayinta caalamka oo dhan waxa qaar kamid ah diiwaanada caalamka ay ku qiyaaseen inta u dhaxayso 100 bilyan ilaa 130 bilyan halka diiwaano qaarba ay gaarsiiyaan in qiimaha suuqa kokaayinta ay joogto 500 oo bilyan saadarteed 60% oo kamid ah qiimahaasi haddii la siiyo maafiyada Sinaloa cartel waxay si fudud ugu raaxaysanayaan in ka badan 3 bilyan oo dollar adigu waa qiimo ugu yaraan ka daba dhow 60 bilyan oo dollar 60 bilyan oo dollar ka yar ilama ahan in kooxdan ay sanadkii soo hayaan number 6 Yamaguchi Gumi waxa hubaal ah in ay dhagaaga ku soo dhaceen ururka maafiyada caanka ah ee Yakuza qof kasta oo horay u maqlay qisada ururkan wuxuu aad uga warqabaa shuruuciyada adag ee ka dhex jira ururkan iyo ciqaabyada naxariis darrada ah ee la marinayo qofkii ku xadgudbo hal sharci oo kamid ah shuruuciyadaasi ciqaabta ugu yarna ay tahay in qofka uu faryareediisa iska gooyo si uu u tuso in uu ka xun yahay falka uu sameeyay almuhim maafiyada ujeedkeenu yahay ee Yamaguchi Gumi waa xubin kamid ah ururka maafiyada Yakuza waxaana aasaasay nin lagu magacaabo Haraguchi Yamaguchi waxaan filayaa in magaciisa aan si saxan ugu dhawaaqay kooxdan ayaa balaayin dollar ka soo xarisa ka ganacsiga khamaarka iyo hoteelada lagu tunto manduuriyaasha iyo hubka sidoo kale ganacsiga dadka qaasatan hablaha kama marna muuqaalada fuxshiga ah ee internet pornography waxaana hantidooda lagu qiyaasaa ku dhawaad 6.6 bilyan oo dollar inkastoo hubaal ay tiradaasi aad uga badan tahay number 5 United States of America sugbal yaa midan liiska ku soo daray aan iska saxno number 5 D Company waxay u badan tahay inaadan horay u maqal maafiyada D Company waana sax oo inta badan warbaahinada kama hadlaan sababka aan looga hadlinna ma ahan in la jecel yahay oo macluumaadkooda la qarinayo balse taa cagsigeed maba aha koox macluumaadyo badan laga hayo waxaad dhihi kartaa waa kuwa daaha gadaashiisa dunida ka maamula sababka ay isku qariyaanna anaa kuu sheegi doona maafiyada D Company waxa hogaamiya nin lagu magacaabo Dawood Ibrahim oo qayb ka ah liiska 10 qof ee most wanted ka ah sanadii 2011 ay soo saareen qolada FBI-da ilaa maantayna meel uu ku nool yahay cid sheegta lama hayo maafiyadan ayaa aad uga ganacsataa maandooriyaha heroin iyo sidoo kale hubka noocyadiisa kala duwan waxaana xiriiro dhow ay la lahaayeen ururka Al-Qaacida oo inta badan taageero dhaqaale iyo hub ay la garab joogeen maantayna waxaa hantida maafiyadan lagu qiyaasaa ku dhawaad 6.5 bilyan oo dollar number 4 La Cosa Nostra daawade aan ku weydiiyo horay ma u daawatay filimka caanka ah ee Godfather haddii jawaabtaada ay haa tahay sida aan filayo waad ka warhaysaa cidda ay tahay maafiyada La Cosa Nostra oo sheekada filimkaasi oo dhanba ay ku tiirsan tahay marka sheekada ay timaado ka hadalka maafiyada caalamka ma jiro mid caanimo ku gaarta maafiyada Cosa Nostra waxaana midda ku cadeynaysa in magaca kooxdan lagu soo gaabsado oo kaliya The Mafia oo ah maafiyada asal ahaan kooxdan waxa laga soo aasaasay gobolka Sicily ee dalka Talyaaniga sanadii 1800 waxay dadka qaar sheegaan in asal ahaan maafiyadan ay ka soo dhex aasaasantay gudaha xabsi kamid ah xabsiyada Italy sanado kadibna waxa kooxdan u suurog gashay in ay awoodooda balaariyaan iyagoo gacanta ku dhigay qaybo badan oo kamid ah dalka Talyaaniga isna aad uga faa'iideystay qalalaasihii siyaasadeed ee ka jiray Talyaaniga xilliga inkastoo boqolaalo sano ay ka soo wareegatay xilligii la aasaasay haddana ilaa maanta la joogo ma aha kuwa awoodooda ay daciiftay laga soo bilaabo ka ganacsiga khamaarka ilaa ka ganacsiga jirka dumarka ma jiro hawl sharci darro ah oo ay gacantooda la galin report ay FBI-du soo daabacday sanadii 2005 ayaa waxay hantida maafiyadan ku qiyaaseen shaki la'aan in ku dhow 100 bilyan oo dollarka Mareykanka ah number 3 Gulf Cartel tani waa mid kamid ah maafiyada ugu cimriga dheer ee gudaha wadanka Mexico inkastoo sida xoogga ah ay uga howlgalaan gudaha Mexico haddana waxay dhammaan daafaha caalamka qaasatan Mareykanka Europe ilaa South Africa ay geeyaan muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan waxay aad uga caanbaxsan yihiin afduubyada dadka muhiimka ka ah Mexico iyo khaarijinta shakhsiyaadka laga dalbado inkastoo sanadihii dambe dhibaato badan ay kala kulmeen wakaaladaha la dagaalama daraagiska iyo maafiyada kale ee Mexico kala dhisan sida Sinaloa cartel haddana xududooda iyo hantidooda dhaqaale ma aha mid daciiftay waxaana hantidoodu lagu qiyaasaa 10 bilyan oo dollarka Mareykanka number 2 Trades tani waa mid kamid ah ururada maafiya ee ugu qaabaysan uguna xuduud weyn ee taariikhda asal ahaan waxay howlgaladooda ka soo bilaabeen Hong Kong Macau iyo Taiwan iyagoo ku fiday wadamo badan oo caalamka kamid ah sida Mareykanka Vietnam New Zealand
ruushka ingiriiska ilaa iyo South Africa inta badan waxay hadeer ganacsigooda diiradda ku saareen ka ganacsiga dumarka waxaa la sheegaa ku dhawaad 100,000 oo qofood in ay daafaha caalamka u kala dhoofiyaan sanadkii waxay kaloo aad u kala dhoofiyaan draagiska noocyadiisa kala duwan qiimaha hantidoodu waa mid ay adag tahay in la qiyaaso balse waxay kaalmaha sare ee maafiyada ugu hantida badan dunida ku muteysteen kadib markii 2018 shaaca laga qaaday in lacago sharci darro ah ay ku maalgeliyeen sare u qaadista qiimaha guryaha magaalada Vancouver ee dalka Canada lacag qiimaheeda lagu qiyaasay 5.4 bilyan oo dollarka Mareykanka ah saadarteed in tiro intaas la eg ay hal mar hal magaalo ku bixiyaan ayaa keentay in aan bashaki la gelin in maafiyadan ay gacanta ku hayaan lacago xad dhaaf ah Number 2 Bratva waa maafiyada ugu weyn gudaha Russia halka dadka kaleba ay ku tilmaamaan in ay tahay maafiyada ugu weyn caalamka waqti xaadirkan la joogo waxaa la aasaasay dabayaaqadii 1980yadii waxayna xilligan la joogo ka howlgalaan ugu yaraan 32 wadan oo caalamka kamid ah maafiyadan waxay structure ahaan ka duwan tahay maafiyada kale ee caalamka ka jirta halka maafiyooyinka kale ee caalamka ay leeyihiin kala sareen madax iyo hogaamiyaal maafiyada Bratva lama yaqaano sida ay isku hogaamiyaan waxayna ka kooban yihiin ku dhawaad 9,000 oo koox kuwa oo midba kale ka madax banaan waana sababka ay u adag tahay in raggan la soo afjaro waxa lagu qiyaasaa in ay soo xareeyaan dakhli dhan 8.5 bilyan oo dollar sanadkii mana jiro fal sharci darro ah oo ay gacantooda ka dhowrsadaan dilalka shirqoolka ah ka ganacsiga dumarka daraagiska ilaa hubabka noocyadiisa kala duwan waxaana inta badan lagu xantaa in ay si dhow ula shaqeeyaan dawladda Ruushka iyo madaxweynaheeda Putin iyagoo daaha gadaashiisa uga fuliya waxyaabaha sharci darrada ah ee ay ka dalbadaan nambarka ugu dambeeya Yakuza ururka maafiyada Yakuza waxaa loo tixgeliyaa in ay yihiin bilaa shaki maafiyada ugu taajirsan caalamka xilligan la joogo waxaa lagu qiyaasaa in ay soo xareeyaan dakhli dhan 13 bilyan oo dollar sanadkii inkastoo sida aad filan kartaaba tiradaasi ay aad u yar tahay waxay ka kooban yihiin kooxo maafiya oo aad u tiro badan ayna ugu weyn tahay maafiyada Yamaguchi oo aan horey uga soo hadalnay waxay hantidooda inta badan ka soo xareeyaan ka ganacsiga khamaarka iyo hoteelada lagu tunto ka ganacsiga dadka qaasatan hablaha sidoo kale maandooriyaasha iyo hubabka qaab dhismeedka maafiyada waxaad ba oran kartaa waa dawlad madax banaan waxayna leedahay shuruucyo gaar ah oo midkood qofkii ku xadgudbaa la marinayo ciqaabta mideeda ugu xun haddii aad ka heshay mawduucan ku dhufo muuqaalkan oo aan kaga sheekeynay qisada cajiibka badan ee gaangistarkii ugu caansanaa dunida Al Capone halkan ayaan kaga baxayaa muuqaalka waa inoo muuqaalka kan xiga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh waxaan kaga tegayaa sidaa iyo amaano Allah